muuqaalkii ka horreeyay waxaynu ku soo bandhignay buugga oo ciwaankiisa uu ahaa sidee baad uga gudbi kartaa caqabadaha kaa hor istaagsan guusha. dabcan buugga bilowgiisii iyo dhammaadkiisiiba waxaa kaalinta kood u galay inuu ku dhameeyo muddo yar walaal Soomaaliyeed ka oo inala mid ah yani akademiyada xulasha daljir ka mid ah. waxa uu ku dhameeyay muddo yar maadaama aan jadwal soo dhignay, jadwalkii intii aan la gaarin ayuu dhameeyay. waxauna inaga muteystay darajo maadaama anaguna waxaan nahay dadkii yani soo bandhiga buugga sidaas la midina buugga qofka uu soo amaanay wuxuu yiri maasha Allah wax badan baan ka faa'iiday. sidaas la midina anaguna waxaan jeclaysanay in aynu dhiirigelino si uu wax badan u faa'iido, wax badan u aqriyo, horeyna uu socdo oo buugaag badan oo aan soo wadno oo muhiim ahna uu inala jaan qaado, lugta inala qaado. qofka magaciisu waa Xasan Culuw Ciise. wakaaga madcelinaya saaxiib sida wacan aad yani wakaaga madcelinaya saaxiib sida wacan aad inala qaaday buugga oo inala aqrisay. sidaas la midina waxaan si khaas aan kugu madcelinayaa maadaama aan jadwal soo dhignay, aan dhahnay muddada aan lagu dhameynayaa, aad adigu akhriska aad u jecleed aad ku dhameysay muddo ka yar, aad baan kaaga madcelinayaa. warjeenayaa in yani aad nala jaan qaadi doonto, aad buugaagta aan soo wadno oo muuqaalkan hadda laftirkiisa baan buug soo bandhigano, aad nala jaan qaadi doonto, aad buug walban aad aqrin doonto. warjeenayaa sidaas la midina muuqaalkii hore buuggii aad dhameysay ama bishii hadda aan soo dhaafisay buuggii aad dhameysay in wax un ay ka faa'iideen, maskaxdaadu garaadkaaga uu xoogaa ka baxay. warjeenayaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آد بني سلام يا ولا خالقة ميل بد عالم كجبتان سول بوين سجارة يا عد كيجي مقال كيجا. آد بني سلام يا مركو ورسو مركو حكتو وحى ما تسكله الله سبحانه وتعالى والله سكوك أنا كأنا لما أنت بهالكان سلسلة مدة وحى ما حد غاس اسكله آديجا مدام فيديو وقتكم بحساب داون يسو وكأنه ما دعينا سيدو عنا فيديو داون يسو. أنت كذب هذه أتكون عصبتها جنالك سبسكرايب صار ما هنروح لسكو شيء قبل دام أنا واحد نسوق بنا برنامجيو آدي أدي كوحي سجليو مركا هنلقى في سبسكرايب كا أو لايك تا يا شير تا ولا له وشير قري كومنتنا كبيحي برنامج عندكو عجبيي ولا له حاجرو أديك أو كلا أو آخر كأدو جعل مركا خبو شير تخبو عندنا فيسبوك يعني واتساب أنت تسمع شباب برشة كل شير قري أو ولا الإليفة يصير بيشان يبوق عصب هذا أبوك بيشي هرك ومعركة كيف يسوي بيشان إجلفة يسأله سي يعني اسكو ليفل نقطة صاحبك وأد لربت همك إنه يعني همه يكسدو ويسين هاي ماله وكهلا بواق فريقه. طبعا أنا جوحنا حل قامني أو مقالة ظهر أنا كسر شيء إنه بيل ولا بيبوق عصب صوبان دقيقة ورجينا يا مركينا فيديو شير جريسو أد سبسكرايب كنا تابعته تابع لسكو شيء ما هن مركينا سبسكرايب تابعته رجينا أنت كذب مقال كان عاوح وكسر سنية هاي buug aynu soo bandhigi doonaa. buugga ayaa ciwaankiisu waxa uu yahay astaamaha lagu garto qofka hanka sare leh. dabcan buuggii ka horeeyay qoraagii qore ayaa buuggan qoray maadaama aan buuggan jeclaanay yani dadkii xulashada daljir ka mid ahana ay jeclaadeen ay dhaheen aad buu inoo cajibiyay qoraagan yani xigmadahu u adeegsanayay, haleesyadu u adeegsanayay. marka waxaan jeclaysanay inaan buugga kale aan akhrin doono bishaan isla asiga buugaag oo qore aan soo raadino. magaciisuna waa Cabdifataax Maxamuud Ducaale صاحب قاليا وان كاغا مدعلنيا خورنا u soco dadaalkaagu ma yara insha Allah. go ahead waxaan ku rajeenayaa in aad horumar balaaran gaarto, aad qoraanimada aad yani mustaqbal ka gaarto. dabcan buugtaada maanta adigu waxay ku tahay farxad ama dhiirigelin sida u taqaanabo maadaama yani walaalo Soomaaliyeed ay buugtaada akhrisanayaan. sidaas la mid ah si khaasan kaaga madcilinayaa maadaama aan yani kamid nahay walaalihii buugga soo gaaray andan si faafiyay. inta kadib Cabdifataax Maxamuud Ducaale buugga waxa uu magac daray astaamaha lagu ogaado qofka hanka sare leh. dabcan hadii aad rajeynayso dhehday walaalkayga walaasheeda kan ila dhashay saaxiibkayga sidee baan ku ogaa garaa qofka hanka sare leh. dabcan buuggan wuxuu ku soo koobay si aad indhaha ku eegi karto qofka hanka sare leh oo aad hore ka soo saari karto, aad dhigi karto kan meel uu socdaa kama hari doono, kan waa saan kama hari doono. dabcan buugga halaha uu kaliya uu ku saabsan yahay. warjeenaya marka inaad buugga aad bisha inala dhameyso, aad si wacan aad yani buugga si taxadar leh inta u dhameyso ama hal door ama laba door aad ku soo daawacato andan aad akhriso subax walbo kaama badno. buugga total good waa 134 page. sideenu jadwalka aan horey aan ugu soo sameeyay camal buuggan jadwal aan u sameeynay oo waxaanu ku dhameyn doonaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raali noqdo 25 bari at least 25 bari. yani qofka ugu horeeyo ee buugga soo dhameeyo waxaynu ku soo xusi doonaa isla fiidiyoga sidaynu hadda ugu xusnay Xasan Culuw Ciise maadaama uu ahaa shakhsigii ugu horeeyay ee dhameeyay buugga muddada aan ku ballan qaadnay maana muddo ka yar. wakaaga madcilina saaxiib si qaas waliba warjeenaya marka dadkii yani buuggan
inala bilaabi doono bishaan marka inta yani aad ku dhameen doonto qofka ugu horeeyo inala soo wadaago and then yani aan ka hubino in uu yani buugga dhameeye su-aalo yani aan weydiino and then waxa idil uu confirm saaro qofka waana ku xusi doonaa videoga haddii uu ogol yahay in yani uu kasoo muuqdo video ku xiga ee soo socdo bisha dambe insha Allah marka insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna gaarsiiyo bisha dambe tan hadda yani aan joogno buuggaani waxaa laga doonayaa inaad nala jaan qaado oo aad nala akhriso haddii aad kamid tahay xulashada jira haddii aadan kamid ahayn waxaan ku hayaa yani optiono aad anaga inoogu soo biirto dabcan lambarada shaashada kaaga muuqdo si taxadar leh u qoro and then WhatsApp-ka aad si degdeg ah waxa lagu caawin doonaa oo waxa lagu dari doonaa akademiyada maanta labadan buug akhrisay يعني بوق هوري بوق الصعد من لا آخرنا الوجود دري دونا سي يعني عاد سي التحدي اللي وقف أيد بوقا عاد نحر كدكتو عاد هذنا يعني عاد جعل أساسا بوق بدنا نوصل بدي ورجعني يا مركي إن سدا سمي دونتو لمبرد خران دونتو أنت كدب وحنو فرد دونا بوقا إيه بوق وينسكوه بين دونا مدام بوقا عن ربع إن أوصل بندق ولا الصوماليات أو كبد ملايين قف مركب ورجعني يا مركي إن بوقا عن إذا لا فرو aan idinla arko waxyaabo ku saabsan yahay tusmadiisa oo kaliya buuga igama dheero waa kana mar hore soo baxsada aniga marka intiinaan yani ilaahay subxaanahu wa ta'aala u dhiibo jeebka u qoyan marka isku dayaan in ka badan $1 $2 lagu bixiyaa adliista dadka macni koobiga joogo macaamiish way yaqaanaan wuxuu ku dhufanayaan inta page uu yahay 164 page intaas lagu leeyahay marka adigu ka fakir waxa aad saa'idaysid ama yani ku siyaadaya bil $2 ma awoodis waa hada bil inaad buugan soo baxsato oo afkaaga hooyo ku qoran and then aad nuxurka kala baxdo ma awoodi yani ma dhigaysid ma hayo ma awoodo waxaas marka waxa laga baahan inaad fikirto aad aqliga u saaxiib noqoto buuga haddii aan yani tusmadiisa idin soo bandhigo yool cad waa inuu hadaf cad leeyahay sidaas la mid waa inuu qorshe u degsan yahay yani qodobka koowaad la marooyaa waa inuu qorshe u degsan yahay uu dhahayo balaan A maanta hadaan qabto balaan B waa aada yani qorshihiisa A iyo B iyo C u kala samaysto oo dhahayo maanta waxaan rabaa inaan darajo ka gaaro halka sameynayo aan yani ka quusaneyn qodobka labaad uu buugga ka hadlayo anigoo waqtiga dhowraya maadaama yani ugu talagalay fiidiyogan kaliya tusmada buugga aan idin soo bandhigay iyo dadkay ka faa'iideysan lahaa qodobka labaad ee qoraagu uu kusoo bandhigay yani buugga uu qoray oo uu magac daray astaamaha qofka hanka sare leh wuxuu qodobkaas qiixayaa waa qof hiigsada inuu meel weyn ka gaaro cibaadada Allah subxaanahu wa ta'aala qodobkan waa fast yani wax waliba yani qof waliba horumar gaarayo waxa looga doonayaa yani inuu yahay qof Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xiran qofka yani Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xirneen darajo asiga gaari maayo guul iyo asigana kala dheer yihiin marka isku day haddii aad rabto inaad meel wanaagsan inaad ka soo baxdo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xirnaaw wax waliba way ku hagaagi doonaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu quraanka isku leeyahay isigoo rasuulka la hadlayo wa idha sa'alaka ibadi anni xaggayga إلى سبحانه وتعالى دهايو هدي كوي ديارك فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أنا أقول دوهي وحول يعني يوديستان وأنا أجيب وياه أوكي قلبك سدحات وحو قراء وقيحي وحيابها اللي يوقفك اسكسر مريا وحي في عنه وقتها يعني وحي هوس ودقايو درجيس هوس ودقايو وسكلي ذا طبعا سيداس أفهمت أفهم أنا وحي في عنه وقتها وحيابها وناقة كسبتنا وقتها أوكي أنا وقتي دوري قلبك أفراد أنا قدمنا مدام يعني وقتي وآد إنه ويريه wuxuu yiri bulshadiisa ayuu wax u qabtaa marka sidaas la bade waxaad ku ogaa kartaa uu yani qoraagu uu noogu soo bandhigay waa qodobo aad u muhiimsan oo yani si exactly loogu ogaado qofka hanka sare leh qoraagu wuxuu ugu talagalay buuggan yar xigmadda ay ku saleysan tahay 6 qodob oo kaliya marka ciwaanka ina dhaxgal mar mana uu talagalna ciwaanka dhaxgalo waxaan yani diirada saarayo kaliya buuggan aan soo bandhigay iyo tusmadiisa oo qoraagu uu noogu soo bandhigay tusmada tudciidiisa yani ciwaanada uu ugu soo talagalay aan idin soo bandhigay haddii aad jeceshahay aad rabto ciwaanada aad ka heshay aad dhaheedo alla ilaahay waa ciwaanadii aan raadinayay in badan in muddo ah haddii aad rabto fadlan lambarka shashada inaga muuqdo inala soo xiriir si yani akademiyada lagu daro andan buug iyo free lagu siiyo si degdeg ah aad la soo baxdo aad dhahdo madbacdaha intii ku dhow inta tagto warii bixiya aad fursada helay warii bixiya andan si degdeg lagu bixiyo guriga aad timaado subax markaad hurdada ka soo kacdo jadwalka taqaan jadwalka leedahay Soomaan yani waxa ugu haboon wax la aqriyo galabkii casirkii oo kale markay casiriyada yani shaaha aad cabayso inaad ku dul aqriso andan yani ama markii subax aad sidii hurdada ka soo kacdo aadan ku laaban aad halkaaga jus aqriso andan aad ku xijiso buuggii meesha uu ku maray bakebel
qalin calaamadaysan aan soo qaato qodobka kash calaamad ficil aad disho buugga aad laabto aad dhahdo waxaan uu ka hadlaya buugga saanisan inaan u bedelaan rabaa saanisan inaan noqdaan rabaa waa astaamaha lagu garto qofka hankastana leh sidoo kale haddii aad yacni aad fariimo badan inaad noo soo qorto rabto aad meelo badan inaad nogala soo xiriirta aad rabto descriptionka imaaw facebookgeena instagramkeena dhammaan waa yaalaan si deg deg inoola soo xiriir waxaan ku caawin doonaa iyadoo ay tahay biidni illaah waxaan kugu caawin doonaa inaan yani ku siino buug free ah oo aanan lacag kaa qaadeen dabcan qofkii ku siiye lacag iyo qofkii ku siiye buug qofkii buug ku siiye kuu qiimo badan yahay wuuna kuu darajo sareeya inaad adigu xisaabtantaa lagaa rabaa dhahdo qofka caqliga u saaxiibka ah waa midka yani buugaagta badan aqriya wax badan soo ogaada mo information soo ogaada marka xasan colow ciise waa kaaga mahad celinaya saaxiib mana ka daalaya inaan maanta dhan kugu mahad celiyo waa rajeynaya marka adigana in aad yani aad la jeclaato walaalahaaga aad u sheergareyso dhammaan asxaabta walaalahaaga yani kuwa kula dhashay kuwa asxaabta aad isla tihiin kuwa yani aad meelaha isla fadhiisataan aad dhahdaan war fursadan ka faa'iideysta war fursadan ay inoo soo bandhigeen yani caamir yare iyo sidoo kale janalka caamir yare aan ka wadahay janalka caamir yare uu idin soo bandhigay iyo akademiyadda xulashada daljir ay idin soo bandhigeen ka faa'iideysa aad dhahdo qofkii yani aqli u saaxiibka ee rabo inuu higsado meel sare si taxadar asiga noogu imaanayo waan rajeynayaa in muuqaalka aad ka dheragteen oo aad yani aad nuxurkiisa aad daawateen mar raba inaan muuqaalka dheereeyo waxaynu ku kulmi doonaa bisha soo socota iyo buug cusub waan rajeynayaa in aad bisha idinla aqri doonto buug cusub asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu